qaybgalayaasha xafladan reer Maakhar oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta siyaasiyiin hore xildhibaano iyo wasiiro hore cid kasta oo nasiib u yeelatay halkan inay timaado waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaamna waxaan filayaa waa galateen natiijada reer Maakhar isugu yeerteen iyo ujeedada ka dambaysa shirkoodan. shirkan waa sii socon doonaa haddii rabbi yidhaahdo ilaa intaan ka gaarayno yoolka aan leenahay. yoolkeennu ma aha inaynu cid doonayno inaan dulmino, mana aha inaynu cid doonayno inaan dhibno. yoolkeennu waxa weeye sida dadku mustaqbalkooda uga tashadaan ayaynu uga tashanaynaa mustaqbalkeenna. marka la fiiriyo dadka reer Maakhar hadda Warsangeli waxaa la aaminsan yahay dhulka ay joogaan baa ka qaalisan. dhulkana ilaahay baana ku abuuray, ilaahay baynu uga mahadnaqaynaa hadduu dhulka kale ka fiican yahay juqraafi ahaan, leeyahay xeebtii, leeyahay macdantii, leeyahay wixii oo dhan, leeyahay baddii, leeyahay xijigii, leeyahay xoolihii. dee ilaahay baa ku mahadsan wayna ku aadiyey goobta nooca weeg ee midabkaas leh. marka waxaan rabnaa inaan idhaahno dadkan tol baan nahay, Puntland waxbaan wada dhisannay, saakana waxaynu wax xuquuq aan ku leenahay ma jirto. waxaynu wadaagnaa Puntland maanta haddaynu isweydiino maxaynu wadaagnaa? dhibtaynu wadaagnaa. hadday soo qayliyaan waa u gurmanaa. wax kale aynu wadaagno ma jirto. yani hadday soo qayliyaan ay yidhahdaan dhadaar baa dagaal ka dhacay ama wuxuu ka dhacay Suud iyo Garmaal buu ka socdaa ama meel heblaay ay ka socotaa, waa aadnaa, waa ku dhimannaa, waa ku dhaawacnaa. waxaana laga yaabaa xataa dadka ku dhinta oo ku dhaawacmaan inay ka duwanaadaan hadhow tacaamulka caafimaadka dadka kale.